halkani waa hotel Galooley waxa shir jaraa'id oo ballaaran ku qabtay odayaasha salaadiinta ka soo jeeda degmada Agabare gobolka Gabiley isla markaana raali gelin u diray mas'uuliyiinta warkacayo barasaabka gobolka duqa degmada Gabiley oo ay hore odayaal ka tirsan odayaashani shir jaraa'id oo ay ku qabteen degmada Agabare ay hore ugu dureen isla markaana ay maanta raali gelin u direen isla markaana ay ka raali geliyeen dhacdadii halkaasi ka dhacday iyagoo ku amaanay waxqabadka oo halkaasi ka qabtay duqa degmada Gabiley odayaashii hadlay Agabare ka hadlay eedeeyay Gabiley iyo maamulka marka bini aadanku khaldamayo isma ogaado laakiin markuu khaldamo wax loo sheego ogaada halka waxaan aanu maanta qirayaa inaanu galay qalad bilaa sababa deedna markii aanu galaynay ma garanayne maanta aan garanaya waxa ay aqli celiyay oo gartii qaaday ummadda ka mid nahay ee bulshada iyo degmadaba odayaal aqoon-yahan u qaal suldaano intaba markii aanu kulanay anagoon meel kale tagin inaanu dambiilayaalnahay bayna saareen waan qaadanay waan ku qanacsannahay maanta waxaan leeyahay barasaabku wuu salaaman yahay waanu ammaanaynaa si sharaf leh uu noo soo dhaweeyay waanu ugu mahad celinaynaa barasaabka xigeenka maayarka gudoomiyaha golaha deegaanka dhammaan maamulka Gabiley oo dhan waxaan u fidinayaa salaan iyo mahadnaq baan u fidinayaa waxaanu leenahay raalli naga ahaada wax badan oo isku nimidna barasaabka waanu ka raali gelinay hadii maanta calool baanu isku ognahay barasaabka marka qaladka yagii waanu saxnay dib baanu u ogaanay inaanu anagu qaldanay kolka waxay dadka badowga ee reemiga protocol baanay lahayn waxay dambigu ka raacaya wax kale aan kala gelinay kolka halka waanu yar galay imigana waxaanu leenahay isaguna wuu naga raali gelin annaguna waanu ka raali gelin waxaanu halkan raali gelin ka bixinayna bilaadan ku qaldama ilaahay baan qaldamin oo insaan baa loo yahay laakiin dadku markuu qaldamo uu is ogaado inuu raali gelin bixiya oo ka soo noqda waa wax waajiba waanu ka soo noqonay waanu is ogaanay inaanu qalad galay waanu raali gelinay gobolkayagii aanu ka tirsanay maamulkii madaxdayadii dhammaan iyo intii ummadda Soomaaliland hadalka ku gaaray halka waxaanu ka raali gelinaynaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha ku xigeenka taliyaha dhammaan waanu ka raali gelinaynaa wixii halka ka dhacay waanu ka raali gelinaynaa waayo wax waliba oo dhacaan laakiin wuxuu marka dhacaan hadii qaladka dhacay laga daba tago loo ogaado inuu qalad yahay waa sax weeyaan marka qaladkaasi waxaanu ogaanay inuu qalad ahaa laakiin soo aanu saxnay maanta waanu dhamaystirnay waxa kale oo ka raali gelinaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid waanu ka raali gelinaynaa wasiirka arrimaha gudaha dhammaan dawladda oo dhammaan ka raali gelinaynaa wasiirada baarlamaanka guurtida dhammaan ka wada raali gelinaynaa qaladkii halka ka dhacay qaladkii aanu galnay inaan ka soo noqono run ahaantii suldaanku ka shaqeeyay Suldaan Salmaan runtii door weyn ku lahaa maadaama uu reerka odageedii uu yahay waxaan kaloo mahad u celinayaa gudoomiyaha meesha looga dhacay isagoo naga cusub oo tashriif iyo ikraam naga mudan isagoo run ahaantii aan naga mudnayn in la eedeeyo qalad dhacay buu ahaa waxaan rajaynayaa insha Allah isagoo inuu naga saamaxo sidoo kale gudoomiyaha xigeenka maayarka taliyaha iyo dawladda in Allah inta ka joogto halka reer Gabiley dhamaantood waxaan leenahay wala is saamaxay yani in aad naga saamaxdaan khaladka dhacay odayaasha hadlayna runtii caadifay ku hadleen iyo degdeg ayay ku hadleen waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu naga aqbalo idinkuna xilka idinku asturo dawladana waxaan leeyahay uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xafidahullah iyo xukuumadiisaba waxaan leenahay khaladka dhacay xiriir ka dhacay waxaanu leenahay in laga soo noqday oo xaqiina iyo xaqii gobolkaba looga soo noqday baan idin sheegaynaa xafladan qiimaha leh bahdii degmooyinkii aan ka soo jeeday degmo kamid ah oo gobolkeegii Gabiley ku qaldantay halkan ka bixisay raali gelin badan oo nala qaadatay inay qaldameen oo ogaaday iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaanu raali gelin xoog la ka bixino iyagana wixii ay gaadhay hadalkayagaas ee xukuumad ahayd gobolka Gabiley maamulkiisa haday tahay barasaab ku xigeen qayb doobiyaha golaha deegaanka ee shacab ahayd ee culimo ahayd ee caalamka ahaa intaba waxaan leenahay qaladkii halka ka dhacay aad iyo aad baan uga xunnahay oo ay degmadu odayaashii ka hadlay ay qalad ku sameeyeen oo iyaguna u dulqaatay maantana waliba ka saamaxay wixii ay geysteen ee ahayd ku xadgudubka nidaamka dawladnimo
oo ay raaligelin iyaguna wadeen iyaguna ay la qaateen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya odayaasha qaladkooga fahmay ee dib isku saxay mahad weyn bay leeyihiin wada shaqayntii iyo wanaaggii awal bayna dhex yaallay gobolka iyo degmada halkiisii ha ka daa'imo keena qaldanna innagu hoos aynu u qabanno inteenna saxanna aynu isaag taagno aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waxaa kaloon halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha deegaanka maxamed amiin oo miisaaniyadda noo geliyey baahidii ugu xumayd eenu qabnay oo ahayd halkii laga xukumayay degmada oo dhowaan insha allahu tacaala noo dhagax dhigi doono aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloon ku mahadinayaa waxqabadkii uu sanadkiisii noo qabtay hadday tahay saldhigga caafimaadka oo uu noogu siyaadiyey geydhkii aanu kaga xoolaha iyo xayawaankaba aanu kaga ilaalinaynay meesha haweenku ay ku umarayaan ee ubadka lagu xanaanaynayo wixii uu noo qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wixii iminka noo soo sidana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aynu ognahay ee dhowaan u dhagax dhigi doono haddii alla yidhaa muuse xuseen xasan Zom News TV gobolka Gabiley.